waxay wadeen waxa la oranayay rowing baa la yiraahdaa. It's a teamwork. waa dad wada shaqaynaya oo badda sida wada riixaya dhammaantood isla wada galaya. dadkan waxay tababarteen bishii 2 bilood ayay ka tababartaan inta ay summer ku jirto. inta badan dhaxanta lama tababaran karo gebigiisba biyahaasi waa baraf. waxay sameeyaan intaan imaka lagu jiro summerka bisha 4aad wixii ka dambeeyay ilaa inta laga gaadhay bisha 9aad ay ragaasi tababaranayaan. marka dawaka maanta munaasabadii tartankoodii waxaad maanta halkaas ku arkaysaan oo dhan waxa weeyaan waa munaasabada iskugu keentay. so yeah halkaasaan maanta ka qayb galnay. ka qaybgalkaasina dawaadiga arkaya waxaan soo aragnay a whole competition iyo wada ciyaaraya. so yeah ugu imanayaan dadkii oo dhan oo doonaya iyaguna inay ka qayb qaataan. waxay doonayaan iyaguna inay ka qayb qaataan munaasabada. soo inta badan waxay sameeyaan alaaba lagu iibinayaa meesha maanta oo dhan waa la xafladeynaya waa la isku imanayaa. marka fursad bay u noqonaysaa businessyadii localka ahaa iyaguna inay imaadaan at the same time dadkii kale ee iyaguna barnaamijkoodii iyo xafladoontoodii watayna iyadana way fududaanaysaa because inay cunto soo sameeyaan waxba toona ma baahna dadkii halkan joogan baa loo yeerayaa. marka waa ka meesha